habeen wanaagsan saaxiibayaal meel kasta aad joogtaan u diyaar garooba wararkeena habeenimo inaad ka daawataan channelkeena YouTube-ka Sirta Wararka ee Dabasha TV habeenimo Khamiis Jimcaha ayaa soo galaysa 9 Maarso 2023 wararkeena caawa qodobada aad ku daawan doontaan waxaa qayb ka madaxweyne Muuse Biixi oo qaatay mowqif iyo go'aan adag oo la xiriira in Soomaaliland gacanteeda dib ugu soo noqoto magaalada Laascaanood haddaba go'aankan uu qaatay madaxweyne Muuse Biixi waxay ka dhigan tahay iyo waliba madaxweyne Muuse Biixi oo wajihi kara markan qabateen dhanka dhaqaalaha iyo safarada hadii marka la dagaal ka bilaabo Laascaanood macluumaad ayaa idinkaga haya saaxiibayaal oo soo gudbin doonaa waxa kale oo qayb ka noqon doona guddigii lagu muransan yahay oo soo saaray shuruudo adag oo la xiriira arrimaha xajka Mukhtaar Roobo guddigii uu magacaabay oo soo saaray 15 qodob oo la xiriira shuruudaha xajka oo ku soo gudbin doonaa waxa kale oo qayb ka noqon doona madaxweynaha Soomaaliya oo wajahaya qalqal xoog leh oo kaga imaanaya xubnaha mucaaradka xilli maalinta Berri Sabtida baarlamaanka Soomaaliya ay ka shiriyaan ama dood ay ka yeelan doonaan wax ka bedelka qodobo kamid ah dastuurka dalka gaar ahaan qodobada muddo kordhinta yaa mas'uulka dhibaatada ka taagan Muqdisho ay ku horeeyaan dilalka iyo qaraxyada ayaa faahfaahin doona saaxiibayaal iyo waliba sidoo kale maxay ka dhigan tahay sharciga la dagaalanka argagixisada iyo xeerarka kale ee madaxweynuhu meel mariyay amaanka caasimada dhamaan qodobadan kuba kale aan ku faahfaahin doonaa idaacadeena saaxiibayaal qayb ka noqon daawadayaasheena sida maalinlaha ah ugu xiran janaaladina YouTube-ka Sirta Wararka ee Dabasha TV habeen wanaagsan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi ayaan ku bilaabi doonaa caawa wuxuu qaatay mowqif iyo go'aan adag oo la xiriira in Laascaanood ay noqoto magaalo ka tirsan Soomaaliland madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi ayaa la sheegay in mowqifkan uu qaatay kadib markii uu sheegay madaxweynaha iyo kooxdiisaba shir degdeg ah yeesheen maanta 5tii galabnimo oo ka dhacay madaxtooyada Soomaaliland warayana sheegay in shirkaas uu goobjoog ka ah taliyaha militariga Soomaaliland iyo waliba qaar ka mid ah xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ayaa la sheegay in markan ay tusisay laba arin midkood waa mid kubada hadii Soomaaliland ay ka tanaasusho gobolka Sool oo ciidamadu ay ka soo saarto in dhaawac weyn uu soo gaari karo ictiraaf raadinta iyo madax banaanida Soomaaliland oo in ka badan 30 sano maamulkaas uu ku taamayay arinta labaad ee ay dhinacyadu ka doodanaya waxa qayb ka ah in Laascaanood ay kula dagaalameen Puntland sidoo kale Puntland ay faa'iido weyn u aragto hadii Soomaaliland ay ka baxdo gobolkan oo Soomaaliland ay markii ku ciriirinaysa Puntland ayna halkaas iska tusiyeen inay tahay arin kale madaxweyne Muuse Biixi la taliyaashiisa qaar ka mid ah xisbiyada mucaaradka xubno ka mid ah wasiirada ayaa la sheegay in markii dambe ay go'aan ku qaateen in Soomaaliland awood military buuxda ay isticmaasho xogaan helayaan xaqiijinaya in dagaalkii ugu cuslaan Soomaaliland ay rabto inay qaado dagaalkaas lagu xaqiijinayo gacan ku haynta Laascaanood waxaana xogtan helay xaqiijinaya in hal mar dagaal uu qarxi doono dagaalkaas oo noqon doon kii ugu cuslaa oo Soomaaliland ku xaqiijinayso hadii markaas Soomaaliland ay ku xaqiijin weydo gacan ku haynta Laascaanood kadib Soomaaliland la sheegay inay qaado doonto baaqyada caalamiga ee reer galbeedka ee Itoobiya ka imaanaya ee la xiriirna ciidanka Soomaaliland laga soo saaray magaalada Laascaanood maadaama hadda qeyladaanta ugu weyn ay waliba qaar ka mid ah dhaqanka ee reer Sool ay soo jeedin waxa qayb ka ah in marka hore wada hadal aysan la geli doonin Soomaaliland ilaa inta ciidankeedu ka joogaan duleedka magaalada waxaana ismadu ay dalbadeen in marka hore ciidanka Soomaaliland laga saaro magaalada Laascaanood oo guud ahaan bay noqoto magaalo dadka deegaanka ay gacanta ku hayaan markaas wixii ka dambeeyana wixii wada hadallah la iskaga imaan doono waxaas hadda muuqata Muuse inuu qamaar weyn isticmaali doono madaxweyne Muuse Biixi ayaa la sheegay in qamaarka ugu weyn isticmaalay in dagaalkii ugu cuslaa uu soo qaadi doono dagaalkaas oo rabo inuu ku xaqiijiyo gacan ku haynta magaalada Laascaanood hadii arintaas ay shaqay weydeen ciidankiisu inuu kala baxo Laascaanood maadaama la sheegay inuusan diidi karin amarada iyo go'aanada ka imaanaya Itoobiya iyo reer galbeedka safiirka Mareykanka ee Soomaaliya hore uu sheegay in maamulka Soomaaliland laga rabo ciidankooda inay ka saaraan Laascaanood si xal loo gaaro madaxweyne Muuse Biixi ayaa hadda ka baarandagaya labadan ajando waxaas la sheegay kulankii ugu dambeeyay ka dhacay madaxtooyada Soomaaliland in go'aan lagu qaatay in dagaalkii ugu cuslaa la qaado gacantana lagu soo dhigo magaaladaasi وهجاك جدّي ومجعبين مختار روبو ترتنك أرمها حج كي يصوص على الشروط عذاب وشن تبان قلب ككوبان وزير مختار روبو علي أبو منصور وزير كدين توقفته أيها حد قانية إن وقت خره وربو إنه كبارن دجو أرمها حج كب جدّي ومجعبين وزير كوقفته أرمها الدين تحكومة فدرال كصوماليا أيها ترتن عذاب ونك حج كصوبان دقي كون أفر بقلا فرتني أفر أو دي جنتا لبكون صدق لبعضهم حيصوص على الشروطها اللي جربوا الشركة الدنيا إن أتر تمان أذجير حجيد الصوماليين شروطها ayaa mid aad u adag iyadoo shirkadaha doonayaan sanadkan ay bixiyaan adeegyada xajka ee sanadkan loo sheegay ama loo diray dhammaan shuruudaha
ayadoo xitaa lagu wargeliyay shirkadii aan bixin karin adeegyadaasi inaysan qayb ka noqon doonin shirkadaha u tartami kara sanadkan oo adeegyada xajka dadka Soomaaliyeed waxa qayb ka ah kow soo gudbinta codsiga ka qaybgalka tartanka adag ee xajka 1444 hijriyada ah labo in milkiilayaasha shirkadaha ay leeyihiin muwaadiniin Soomaaliyeed waa shirkadaha ka shaqeynaya xajka ee muwaadiniinta qaadaya dadka iska leh shirkadahaas in yihiin muwaadiniin Soomaaliyeed saddex soo gudbinta warbixin kooban oo barofeelka shirkadda ku saabsan iyo sooyaalka iyo caawinaadda shirkadda ayaa sidoo kale qayb ka ah afar soo gudbinta xeer hoosaadka shirkadaha waa shirkadaha ka shaqeeya gudaha dalka oo la soo gudbinayo iyo waliba sidoo kale wax walba oo shirkadaasi oo taariikh ay leedahay shan soo gudbinta shatiga wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee dowladda Soomaaliya ay siisay shirkadaasi oo ay ku horgalayso gudaha dalka lix shirkaduhu waa inay iska diiwaan geliyaan oo ay hay'adaha kale oo dhankaasi u qaabilsan xajka ee dawladdu ay soo maraan oo shirkaduhu ay noqdaan kuwa diiwaan gashan toddoba shirkadaha ay milkiilayaasha yihiin dad sumcad ku leh gudaha dalka weligoona aysan maxkamad ka soo muuqan waa ciqaab adag marka la eego qodobada qaar milkiilaha shirkadda iska leh hadduu maxkamad ka soo muuqdo oo dambiye lagu xukumay ama nin dambiilaha oo maxkamad soo maray hadduu yahay ma heli doono shatiyada sida ku xusan qayb ka mid ah go'aanadan soo baxay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu wajahaya xaalad qalqal aad u xooggan maadaama baarlamaanka Soomaaliya maalinta bari ay u dhaqaaqi doonaan ka doodista qorshaha la xiriira muddo kororsiga baarlamaanka xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka ayaa maalinta Sabti oo bari ah la sheegay dood adag inay ka yeelan doonaan wax ka bedelka dastuurka qodobo kamid ah gaar ahaan qodobada xilhaynta madaxweynaha ee kan baarlamaanka doodase waxay tahay xubnaha mucaaradku hadda ka digaya inaan la joogin xilligii muddo kordhin loo sameyn lahaa dawladda tan mucaaradka ayaa sheegaya inaan lagu degdegi karin muddo kordhin Sheekh Shariif Sheekh Axmed Xasan Cali Kheyr iyo xubno kale ayaa ugu digay madaxweyne Xasan inuu ka tanaasulo qorshaha muddo kororsiga halka sano ah madaxweyne Xasan ayaa la ogay nooca mowqif ee go'aan uu qaadan doono maadaama baarlamaanka Soomaaliya maalinta bari ay dood adag ka yeelan doonaan arrimaha la xiriira muddo kororsiga ayaa ah in muddada xilhaynta baarlamaanka laga dhigo 5 sano halka muddada xilhaynta madaxweynaha laga dhigi doono 5 sano taas oo ka dhigan in madaxweyne Xasan uu 5 sano u buuxdo xilka uu hayn doono baarlamaanka Soomaaliya ayaa sadooda adag bari ka yeelan doona oo guddiyo arintaas loo xilsaaray ay dooda keeni doonaan doodaas ayaa la ogeyn sida ay wax noqon doonaan xilli sidoo kale laga cabsi qabo in xitaa hakad uu galo dagaalka al-shabaab lagula jiro hadiiba lagu galo ajenda la xiriira muddo kororsiga xubnaha mucaaradka ayaa sheegaya in haddii ajendaha muddo kororsiga hadda lagu galo ay keeni karto in dagaalka al-shabaab ee dawladdu qaaday hakad uu galo buqsiyasada uu yimaado oo la xoog la yaasacawa ka soconaya hoteelada magaalada Muqdisho oo xildhibaanada baarlamaanka ah ololahaas waxa wada Villa Soomaaliya ayaa la sheegay inay ka go'an tahay meel marinta qorshaha ah muddo kororsiga 2 sano xilhaynta madaxweynaha ee xafiiska uu sii joogayo waxaase la ogeyn qorshahan iyo sidoo ku shaqeyn doono saaxiibayaal wixii warar ku soo kordhan wararkeena kale aan ku faahfaahin doonaa habeen wanaagsan nabadgelyo